الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين markii ay labada geesi ee qowjada ahi islaameen xabsa bin cabdimudallib iyo cumar bin alkhadaab allaha ka raali noqdee bay daruurihii faydmeen oo gaaladu indhaha kala qaadeen oo waa ku bari oo ciqaabtii iyo cadaadintii muslimiinta ka gaabsadeen oo isku dayeen inay rasuulka sallallahu alayhi wasallam gorgoro la galaan oo wax kasta uu rabo ay ku harqiyaan si uu uga daayo diinta uu faafinayo markaasay ku hungoobeen oo ku guuldaraysteen wixii ay damceen ibnu isxaaq wuxuu yiri yasiid bin siyaad wuxuu iiga sheegay muxamed bin kacab al-quradi inuu yiri waxa la ii sheegay in cutba bin rabiica oo duq ahaa ka mid ah duqowdooda uu maalin yiri isagoo golaha quraysheed jooga rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam uu masjidka joogo oo keligii uu meel fadhiyo kulanka quraysheedow ma kaco oo muxamed u tago oo la hadlo oo arrimo u soo bandhigo waa intaas qaarkood aqbalay oo aan siinaatoodii uu doono isaguna uu iska keendaayay waana markii xamsa islaamay ayna arkeen asxaabtii nabiga oo sii badanaya oo siyaadaya waxay yiraahdeen ha oo u kac oo la hadal markaas buu cutba aaday oo ku soo dhawaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo kula hadlay oo ku yiri maynu arag cid kale oo jasiirada ka mid ah oo u keenay musiibo weyn ummadda sida aad adigu yeeshay oo kale waxaad ku tacadiday ilaahyadayada iyo diintayada oo ku sheegtay aabayaashayo caqli xumo iyo baadi waxaana aad naga dhex abuurtay qas iyo lab wada jirkayagiina dumisay jid aadan u marina ma jiro inaadna kala dheerayso haddii waxa kan aad la timid maal uun ku doonaysid waan ku ururinaynaa jeer aad ka noogu maal badan noqotid haddii aad sarrayn ku rabtidna duq baan kaa dhiganaynaa oo tala la'aanta goosan mayno haddii aad boqornimo rabtidna boqor baan kaa dhiganaynaa haddiise waxa kan yahay jinku ku dhacay oo ka qaalib noqday waan kula tacaalaynaa oo maal baan ku bixinaynaa daweyntaada markii cudba dhamaystay iyadoo inta rasuulku sallallahu alayhi wasallam dhageysanayay ayuu ku yiri ma dhamaysatay wuxuu ku yiri ha wuxuu ku yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam anigana i dhageyso markaasuu akhriyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa iska waday akhrintii cutbana markii uu maqlay uu dhagaha u raariciyay oo dhageystay inta gacmaha gadaal marsaday oo garbaduub u qabsaday markii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam meesha sujuuda gaaray uu sujuuday dabadeedna wuxuu yiri waa hagaag abu waliid waad maqashay jawaabtaydii talana adiga bay kula gudboontay markaas buu cutba saaxiibadii aaday markaas bay is yiraahdeen ilaahay baan ku dhaaranay abu waliid wuxuu idin la yimid waji aankii uu idin kala tagay ahayn markii uu la soo fariistayna waxay yiraahdeen maxaad wadaa abu waliidow wuxuu ku jawaabay waxaan wadaa inaan soo maqlay wax aan wax la mid ah waligay maqal wallahi buusan gabay ahayn oo sixir fal ahayn falna ahayn kulanka quraysheedow imaqla oo talada ii daaya ninkan iyo waxa uu la yimid isaga leexda oo ka taga wallahi oraahda aan soo maqlay war weyn bay reebi doontaa haddii ay carabta kale idinka kaafiso iyaga baa dhibta idinka qaaday oo idinkaga filaaday haddii uu carab ka adkaadana xukunkiisu waa xukunkiinii oo cisadiisu waa cisadiinii oo cidi idinkama nasiib badnee saaxigaalo baad la tihiine erayadaas dheg jalaq looma siin umana ayan cuntamin gaaladii kuwaasoo ku qoslay qosol jees ah cudbana wuxuu ku andacooday in nabigu sallallahu alayhi wasallam isaga la fahantiisa sixray waxa kale la wariyay markii rasuulka sallallahu alayhi wasallam akhrinta marinayay halkan inta cudba naxay oo kacay rasuulka sallallahu alayhi wasallam afka gacanta ka saaray oo yiri alle iyo wada dhalashada baan kugu dhaariyay bas sababtoo ah wuxuu ka baqay waxa laga digayaa inay dhacaan dabadeedna inta tolkii aaday uu wuxuu yiri ku yiri inkastoo ay arrimuhu isbedeleen oo ay xaaladda wax badan sidii hore ka roonaatay haddana abu dalib kama bi'in baqdintii uu wiilka walaalkii uga qabay gaalada oo waxa u muuqatay dhacdooyinkii hore sidii hanjabaadii ay odayaasha quraysheed u soo jeediyeen oo u sheegeen inay dilayaan haddii uusan wiilka walaalkii ceshan iyo gorgoradii ay ku damceen inay Amaara bin Waliid nabiga u dhaafiyaan
si ay u dilaan iyo abujahal dhagixii uu damcay inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam madaxa ku baraajiyo iyo cuqba maradii uu rasuulka ku ceejiyey iyo seeftii cumar binulkhadaab intuusan islaamin ka hor u soo qaatay inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku dilo. arrimahaas oo dhan baa abudaalib hormarmarayay oo walaac ku abuuray, waxaana u caddaatay inay mushrikiintu go'aansadeen inay magantiisa u gacan dhaafaan oo bannaystaan. haddaba xaalka sidaas ah, abudaalib wuxuu rumaysnaa inayan xamse iyo cumar waxba u tari karin si kasta maqaamkoodu ha ahaadee. abudaalib arrintaasaa u caddaatay, run bayna ahayd, maxaa yeelay si caddaan ah bay gaaladu isugu raaceen inay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dilaan. marka abudaalib markii uu arkay quraysh oo isub ahaysatay wiilka walaalkii, buu ka dhex istaagay xigtadiisii banu haashim iyo bani mudallib oo ahaa labaduba ilmo cabdimanaaf, oo wuxuu weydiistay oo ugu yeeray xilka ka saaran uhiilinta iyo difaaca wiilka walaalkii. wayna ka yeeleen muslimkoodii iyo gaalkoodiiba, oo ficiladii iyo dhiiggii carab lagu yiqiin bay muujiyeen. abulahab ma ahee, isagu waa ka xarig furtay oo mushrikiintiibuu la saftay. walaalayaal, darsi lamida inta aynu isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.